هذا قرن وحي قبين قرواخ سواد إيو قفتي ذا قرن وحي قبين قرواخ سواد إيو قفتي هذا قرن وحي قبين قرواخ سواد إيو قفتي كمانان سنة oo hadda kadibna maqalka xasuusta dadka Soomaaliyeed heesaan kama go'ay doonto sida ay u macaasanayaan waa hawlada caanka ah ee Maryam Mursal Ciise Bootaan oo 58 sano kadib ku dhawaaqday inay ka fariistay howlihii fanka saacada adduunka sida u socotaba waxa gaaraysaa xilli aadan ahaa karin wixii aad ahayd sida darteed waxa soo idlaatay xilligii masraxada iyo codkii macaanaa ee fanaanadan haddaba waxaad nala daawataan taariikh yar oo kooban oo ku saabsan fanaanada caanka ee Maryam Mursal Ciise Bootaan daawashawaan fanaanada caanka ee Soomaaliyeed Maryam Mursal Ciise Bootaan ayaa xalay ku dhawaaqday inay joojisay shaqadii fanka kadib markii ay muddo dheer ku guda jirtay xilliga ay shaacineysay hadalkan ayay waxa ay ku sugnayd munaasabad ka dhaceysay magaalada London ee caasimadda dalka England iyadoo xafladan ay ka heshay abaalmarin ay guddoonsiiyeen guddigii soo qabanqaabiyay munaasabadan caawa fanka ayaa joojiyay ay soo duceeyay in Ilaahay uga masaxo ayay tiri iyadoo dhinac taagan qoraaga caanka ee Soomaaliyeed Saciid Saalax oo guddoonsiiyay abaalmarintan Maryam Mursal Ciise Bootaan ayaa sidoo kale ka dalbatay shacabka Soomaaliyeed inay iska cafiyaan maadaama muddo dheer ay ku soo heesaysay heesaha ay aad ku dhigeystaan shacabka Soomaaliyeed markaana taariikhda Maryam Mursal Ciise Bootaan Maryam Mursal Ciise Bootaan waxay ku dhalatay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug sanadka 1950 Maryam 6 sano kadib waxay u soo wareegeen iyadii qoyskeeda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Maryam Mursal Ciise Bootaan waxay fanka bilowday iyadoo jirta 14 sano waxaana raadiyo Muqdisho ay ku beertay 1965 iyadoo imtixaan laga qaaday ay ka gashay kaalinta koowaad kadib markii ay ku tartantay heesta loo yaqaano Indhaca Shaq waxaana sidoo kale ay ka mid noqotay fanaaniinta qaranka iyo kuwa howlada waabari Maryam waxaa lagu tiriyaa mid kamid ah fanaaniintii ugu wanaagsanaa ee soo maray Soomaaliya waxaana lagu xasuustaa inay qaaday heeso isugu jira jacayl wadani iyo kuwa kale oo ka hadlaya dhaqanka suuban ee Soomaaliya waxaana kamid ah heesaha caanka ah bari hore waxaa jiray burba kugu gudbane alla nabad hoog gacanta iyo kuwa kale Maryam waxay ahayd qof ku wanaagsan meel walba ha noqoto dhanka heesaha ama dhanka jilinka riwaayadaha iyo ka qayb qaadashada riwaayadaha masraxiyada ka dhici jiray xilliga bariisamaadka waxaan lagu xasuustaa inay ka qayb qaadatay riwaayado kala duwan oo caan ah oo aad u hirgalay ay kamid tahay riwaayadihii Shabeelnaagood Karabidaan iyo kuwa kale wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya 1991 waxay ku nooleed qurbaha gaar ahaan dalalka Denmark iyo dalka England oo muddo ay ku nooleed ilaa haddana ay ku nooshahay markaana qisadii dhex martay Maryam Mursal iyo fanaanka caanka ah ee Axmed Cali Cigaal jacaylka Boondari iyo Hodan waa mid kamid ah qisooyinka jacayl ee dadka Soomaaliyeed ee aadka u hadalhayaan laakiin waxaa jirta qiso kale oo aad u saameyn badan oo weli ay xasuustaan shacabka Soomaaliyeed waana qisadii dhex martay Maryam Mursal iyo sidoo kale Axmed Cali Cigaal inkastoo Maryam lagu fuuqay jinsiyadda iyo qoyska ay ka soo jeedo hase yeeshee ugu dambeyn way ku guuleysatay jacaylkeeda waxaana isku dhaleen laba wiil kuwaas oo midkood hadda uu yahay imaam halka midka kalena uu yahay fanaan iyadoo dhawaan siisay wareysi BBC-da ayay tiri Maryam Axmed Cali Cigaal waa qof gob ah waxaan u hayaa abaal ballaaran oo aan weliga iloobi doonin ayay tiri ninkayga aad ayaan u jecelahay ayayna hadalkeeda raacisay iyadoo markaas sheegtay isla markaan ammaantay hobalka caanka ah oo hadda isaga ku nool wadanka Mareykanka waxa hubaalaha heesaha aadka macaan ee Maryam Mursal inaysan weli ka go'i doonin xasuusta iyo dhageysiga shacabka Soomaaliyeed 100 sano kadib xitaa